وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. داوديال ملك سوتشوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي خيرك الدنيا كآخرة والله إنه وافجيه. وحين كوكو ذكرنا برنامج كيني ودري وتير انتوا محي حلقة دعاء وسقال وقيبتي صدح هذا برنامج كان ندوبنه. إلهي خيرك يساعي نصيبه إنك تساعي دمانتين بقى. waayahay su'aalihi inaan soo weydiinaysayno baynu ku guda jirnaa halkan ay su'aaluhu inoo rasiisayeen insha Allah ta'ala intii maanta xalqadeena Ilaahay noo fudeeyay baynu ka gaarsiin doonaa saddex su'aalood baa isxambaarsan halkan saddex su'aalood baa isxambaarsan kow hooyaday way dhimatay waxaan ku riyoodaa bay tiri hooyaday oo dhimatay oo had iyo jeer yani iyadoo murugaysan aan dareemayna murugaysan tahay talabaad taas soo raacda waxa weeyaan su'aashu waa qof kale weeyaan iyadii un maaha waxaan ku riyoodaa hooyaday waxaan isku daynaa soo yar warino hooyaday oo waxaan ku riyoodaa hooyaday oo dhimatay laakiin riyada xanuunsanaysa oo daalan way isu dhoweyn labadu saddexaadna waxaan ku riyooday hooyaday oo dhimatay iyadoo laakiin nool hooyaday way nooshahay laakiin hadda jeer waxaan ku riyoodaa hooyaday oo dhimatay walaalayaal riyada hooyadu waa riyo culimadu khilaafyo badan ka taagan yihiin dad baa waxay u arkaan riyada markaad hooyada ku riyooto qofka riyoonaya inuu isugu dhimanayo qofka wuxuu ku riyoodaa inay tahay riyo aad iyo aad u wanaagsan dad baa waxay ku riyoodaa riyada waalidka lagu riyoodaa inay tahay qofka dhibaatooyin haystaan mushkiladooyin iyo humuum iyo warwar iyo fikiraad badan Ilaahina subxaanahu wa ta'aala caafimaad ka siinayo marka aday taa ugu horeysa hooyaday oo dhimatay ayaan ku riyoodaa iyadoo murugaysan waxa weeyaan qofku naadiga hadii ku riyoodo hooyadii oo murugaysan oo riyana ay tahay taas waxay calaamad u tahay qofka riyoonaya inuu dareensan yahay murugo fara badan uu dareensan yahay inuu kali yahay hooyadiina aad u xiistay marka waa inan bay ahayd waxa halka ka cad inaad hooyada u xiistay oo dhimatay laga yaabo in dhawaan dhimatay ama in muddo ka hor dhimatay hooyada baad u xiisoonaysaa yani kali baad dareensantahay lonely qof aad la tashan jirtay oo la kaftami jirtay oo tala weydiin jirtay oo dee maskax iyo aqliba ku ahaa ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka kaxeeyay marka riyadaas macnaheedu waxa uu yahay qofkaasi inuu ka murugaysan yahay kala maqnaanshaha oo hooyadii ka maqan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariisto inanta kale waa wada hablo ragii hooyooyinkood mayna ceentalo tan kalena waxay leedahay laba waa ayaan tani bay sheegay magaceeda waxay tiri waxaan ku riyooday hooyaday oo dhimatay oo daalan oo waru yani daal iyo jilaayic iyo daciifnimo iyo wiilka ka muuqato taasi waxay cadeynaysaa qofka riyoonaya arrimihiisu inay mucaqad noqonayaan arrimihiisa culays inuu galayo dhaqaalihiisa inuu khasaaro fara badan qofkaasi uu galayo waqtiyadiisa soo socda in culays fara badan uu fuulayo qofka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fudaydiyo taasi sidaa u dhacdo wallahu ya'lam tii hore murugada lahayd waxa weeyaan hooyada baad u xiistay tan dambe hooyadu ay xanuunsanayso culays badan saaray yahay dhuubatay daciiftay waxa weeyaan qofka riyooday iyada dhimatay ayaa culays badan fuulaya khasaarada fara xagga dhaqaalaha iyo warwar badan ku dhacaya tii kale sheegaysay in qofku ku riyooday hooyadii oo dhimatay aabihiiba la oran maayo waa hooyo uun intani yaa ummuka thumma ummuka laakiin nabigu saddex jeer hooyada sheegay riyadii markaa waxaad moodaa in dee kalgacaylkiiba riyadii xitaa u wareegay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta hooyadu dhimatay u naxariisto inta hooyadu nooshahay Ilaahay qurratu cayn weeyaan Allahu daayo oo barakeeyo bay leenahay idinkuna aamin baa odhanaysaa insha Allah ta'aala tii saddexaadna waxay ahayd waxaan ku riyooday hooyaday oo nool inaan ku riyoodo had iyo jeer iyadoo dhimatay calaamadaasi calaamad fiican maaha riyaasna riyo wanaagsan maaha qofka riyooday mashaakil fara badan baa ku dhacaya dhibaatooyin culus baa ku soo socda laakiin hadday dhimatay islaamtu waxa weeyaan dhibaato ma jirtee arrimihiisa oo dhan baa xalismaya laakiin marba hadday hooyadiina nooshay ama aabihii noolyay adigina aad leedahay maalin waxaan ku riyooday aabbahay oo dhintay ama hooyaday oo dhimatay dhibaatooyin fara badan baa qofka ku soo socda mashaakil adag oo Ilaahay nagu baryayna qofka inuu fudaydiyo hadday sidaa u dhacdo wallahu a'lam qofka haddii ku riyoodo hooyadii siday nolosha tahay sidaas leeyahay qofkaasi ku riyoodo bimaana haddii hooyadii tahay qof jajaban oo wanaagsan oo qalbi fiican ama haddii tahay hooyadii qof qaylo badan oo qaxar badan oo mashaakil badan taasi waxay cadeynaysaa labada riyo waxay cadeynayaan qofkaasi in dhaqaale xumo ku dhacayo oo diiqad xagga dhaqaalaha iyo mashaakil noocaas ay imanayaan laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala farajkeeda uu u furi doono
hadduu qofku ku riyoodo hooyadii albaabkiisa hortaagan way jirtaa su'aal afwan su'aal caynkaas qofka hooyadii albaabka hortaagan oo caafimaad badan leh qofka arsaaqadii khayr baa albaabkiisii soo galay riyadaasna waa riyo wanaagsan qofka hadduu ku riyoodo isagoo hooyadii la sheekaysanaya hooyadii la kaftamaya arrinna ka yara warwarayo sugaya nolol ahaan sugaya laakiin riyadu ay tahay inuu hooyadii la sheekaysanayo la ciyaarayo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas wuu u fudaydinayaa faraj fara badanna ilaahay subxaanahu watacaala qofka wuu u furayaa marka riyadaas laftirkeedu riyooyinka wanaagsan weeyaan qofkii ku riyoodo taasay ku khatimaynaa inaan bayahay taa toos baa lay weydiiyey life baa lay weydiiyey hadda jeer waxaan ku riyoodaa hooyaday ama aabbahayo iga xanaaqsan igu qaylinaya necab waxaan tallaabooyinkan ku dhaqaaqayo qofka waxaan ku yidhi aduu riyada ku riyootay khalad baad noloshaada khalad badan baa ku jira macaasi badan baa ku jira salaad la-aan baa ku jirta cibaado la-aan baa ku jirta hooyada ayaa baa raalli kama aha noloshaada iyo istaylka nolosha aad u nooshahay nolosha waa inaad wax ka bedeshaa